أويس ونكسن داود يا ملك السوء أدنك داونيسن وحن يتكرر لقلنا علة دينا فرصة أو ورك يجي دب أنا قد عني وصل دوادا وركي أويس نمو TVC كلها قرن أرمها حولها ديسيد بيحدين كوين دب عرشة إثيوبيا أي أنسحيي كدب مركي وربحنا دي لصوب بندقي كوضا دودين وحقبت كي رقاقة كالسعودي دينا بيحدين كاسي مشروعة وحن نفافين يا ستايو قرما golaha wakiilada shacabka ayaa go'aamiyay shaqaalaha dawladda iyo kuwa aan dawliga ahayn lacagta deeqda ay ku bixiyeen dhismaha dibxurashada Ethiopia in lagu bedelo ibsashada boondiga khabirada cilmiga u leh daraasadda ay sameeyeen in waxyeelo ah u geysanaynin dawladaha biyaha hela isudwaha guddiga ka qayb qaadashada golaha qaranka mudane barakat Simon ayaa waxa sheegay in guddi ka kooban Ethiopia Sudan iyo Masar in la sameeyo waxa kale oo mudane barakat u sheegay dawladda Ethiopia in ay doonaynin dawladaha jaarka in wax dhibaato ah u geysan karin kula shacabka waxa uu go'aan gaadhay 5 sanadood ee fooda inagu soo haysa in lagu shaqeyn doono horumarinta ilaalinta deegaanka iyo dhismaha biyo xidheenka ee dib u warshada Abay madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa kulan wada hadal ah la yeeshay qoraaga caanka ah ee deegaanka Soomaalida u dhashay ee qurbo joogta ee dibadaha ku nool waxa inuu gudbinaa faafaynta warkaasi qoraagani deegaanka u dhashay ee ku nool dalka dibadiisa gaar ahaan magaalada Stockholm ee dalkaasi Sweden xilligaastii qaabilada madaxweynaha waxa Soomaalida buugaag badan oo ugu talagalay jaamacadda Jigjiga iyo maktabadda dawladda Soomaalida sidii ardayda iyo shacabka deegaankuba uga faa'iideysan lahaayeen dhinaca aqoonta madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo mahadnaq u soo jeediyay ayaa ku dhiirigeliyay in uu dadaalka u wado uu sii xoojiyo qoraagani caanka ahay madaxweynaha oo ku baaqay in ay qurbo joogto u dhalatay deegaanka Soomaalidu ay fikir midaysan ka yeeshaan horumarka ka socda deegaanka Soomaalida ee Ethiopia qoraagani caanka ah deegaanka dhismayaal ay ka mid yihiin laba dugsiyo hoose oo ay wax ka bartaan
fasalka koobaad ilaa lixaad iyo kuliyadda hadday noqoto dhismaha hadday noqoto wadooyinka hadday noqoto caafimaadka waxbarashada oo tuuladii aad tagtaba maanta ay waxbarashadu heer fiican marayso wax lagu farxo oo aan la qiyaasi karin oo aan dadweynihiina u gudbinayn waddan kale oo shisheeye weliba waxyaabaha aan uga sii faa'iidaysan lahaa waxay tahay waa layna dulmiyey oo waa layna siray oo wax kasta wuu nagu dhacay waxaan ula jeedaa dadweynaha u dhashay dowladda deegaanka ku ahayd Kenya maalgashadeen Masar bay maalgashadeen meel kastay lacagtoodii geliyeen war dhulkiina waa idin baahan dhulkiina waa nabada oo qurux ah oo qaali oo adwaalidka iyo walaalaha iyo ehelka kula kulmaysid ubadkaagiina ay dhaqankoodii iyo diintoodii ku baranayaan baa maanta walba ka hana qaaday ku soo laabta baaqay in ay qurba joogtu kaalintooda ka qaataan horumarka ka socda deegaanka Soomaalida ee loogu talagalay shacabka ay abaaruhu saameynta u geysteen waxayna faahfaahinaya Sintayo Girma waxaarka cunada ee loo fidinayo shacabka deegaanka Soomaalida waxana gargaarkaas ku saabsan yahay abaarihii ka dhacay dalka Itoobiya xilli roobaadka sanadka oo dib u dhacay haddaba wariyaha ka tirsan hay'adda raadiyaha telefishinka Itoobiya ayaa soo indheeyay qaybinta raashinka cunada ee degmada Qabribayax ee gobolka Jijiga qaar ka mid ah shacabka degmada Qabribayax ee ka hadlaya sida loo gaarsiiyay cunada gargaarka ah waxaan qaybsanaynaa boorash kalan buu gaar fafa 100 kilometers digirtuna saasoo kale atarum indazano 100 kilo saliiduna iyaduna kilo saytun ba 100 kilometers indazana dawladdu aad bay u mahadsantahay inay noo kordhisaan doonayna abaaraha maqrabo raasin namasakana honom kin kadii balay digaf indiya argilin አስተያየታችን እንጠይቃለን ሰላም ይማሃዲያ ከጋደም ደውለቴ በጣም እናመሰግናለን መንግስት አሃደ wax noo kordhiye iyo baad bayna noo kordhiyaan baan doonay ኢሉም ሁን ዋም ሁን መንግስት ድጋፍ ቢያደርግልን ከዚህ በላይ ቢያደርግልን ጥሩ ነበር ማንተ ማለን አይ ካxunta ma jirto አባራ እስከ ዛሬ ይሄ ያለ ዛሬ እንደተቸገርነው ባለነው ችግር እስከ ዛሬ አይተንም አናቅም waxa degmada ka socda qorshooyin ah ku kala duwan oo loo fududeynayo habka qaybinta raashinka waxana arintaasi loo asaasay guddi u xil saaran qaybinta cunada oo ka kooban qaybihii ka qayb qaadashada haweenka waxay sheegeen qaar kamid ah xirfadlayaasha laamaha kala duwan ee u qaabilsan qaybinta cunada ay sheegeen inay qaybinta gargaarka cunadu socoto hab lagu saleynayo qoysaska oo ay si fiican u socoto waxana ka socota deegaanka Soomaalida inta ka sokaysa gobolada ay abaaruhu saameeyeen waxa gobolka Shineele iyo gobolka Jijiga waxa ka socda dadaal lagu muujinayo damaanada cunada kadib markii ay labadaasi gobol roob ka daay kuliyadda tababarka farsamada ee gobolka Goday ayay ka qalin jabiyeen arday ay tiradoodu dhan tahay 199 oo 24 kamidi ay yihiin ardayda hablaha faafaynta warkaas ayaynu gudbinaa munaasabadaasi qalin jabinta kuliyadda tababarka farsamada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga ee Goday waxa ka qayb qaatay mas'uuliyiinta gobolka waalidiinta ardayda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waliba wakiilada xarumaha macadyada farsamada ee heer qaran ee loo yaqaano TVET iyo waliba wakiilada ka kala socda heer deegaan xafladaasi lagu qabtay hoolka shirarka ee kuliyadda waxa khudbad ku furay maareeyaha kuliyadda mudane Bishaar Barre Cabdi saboolnimada isla markaana loo gaaro xidhiidhada muhiimka qarniga ee horumarinta beeraha oo horseeda bulshadaha haddana dakhilada dawladku gudayaal iyo norway